akhyaar ay shaqaalaha rayidka la yiraahdo ee madaxda ka tihiin culays badan ka taagan hadda way fiicnaan lahayd inaan systemka galloon fiirino shaqaalaha 5,000 ay inoo qoran hadda ma la geli karaa ii fiiri hadda inta ku jirta ii fiiri inta shaqaale ee hadda ku jirta shaqada bal hala fiiriyo oo rayidka ah numberka hadda la sii halkaan aan ka fiirsanayna waxaad ii fiirisaa inta ku jirta iyo inta fasax sharciga ku maqan برسنت هذا واسد أقسمها جودة جودة شغالة هنرنا إنه نشيب ما عندكم ليه على السوا حتى نعم سمع معي أكثر استعمال الله معطي أنا هل كان داشبورد وحكموا هو أفضل طيبة كان كوبات وحكاها الله يا طاطة جود شغالة دولة بايومتريك أبتدى السيستم كوجي فحطها اللي بدي أقوله تريده هو شن طلاب بقول كنت نيكوف أنت الشغلة كوجي تناشق إيه أنت فصح شرعي يكون بس توتال ساعة صح هذا وشغالة كوجي تا كل لما بقول يلحي طوال شغالة أوكي يا أنت فصح يكون مقال صح بقى waxaa maqan oo aan saak soo xaadirin 4,500 shaqaale waxaa fasax ku maqan oo la diiwaangeliyay oo fasax sharci ku maqan oo systemka ugu jira cadaynahoodii 186 qof marka 4,535 oo maqan marka laga jaro 186 fasax sharci ku maqan waxaa soo haray 4,349 qof هذا ما صدق اسك سوفرس maxaa idinka muuqda meeshaas iska welfare waaye yani meesha waa caydii la qaadan jiray meeshaas waxaa idinka muuqan waa disaster actually wax adduunka aqbali kara waxaas ma jiro yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya marka yaa mas-uulka ah arrintaas maxaad u aamusantihiin agaasimayaasha guda mas-uulka ah wasiir mas-uulka ma aha cid kale mas-uulka ma aha qof kale mas-uulka ma aha you are responsible guys inta haddaan isu sheegi weyne maogtahay waa aakhira waa meelaan gelayna lama garanayo marka arrintaa maxaa laga sameynaa waxaan rajaynayaa bisha dambe markaan isu nimaadno meeshaan markii dhaash laga siiyo inuu wax iska bedelaan qof walba hay-addaadii ku noqo yani waxaad ka soo helaysaan dad lacag qaata oo mushahar qaata oo shaqaalo rayada oo maraykan jira oo ingiriis jira oo carab jira oo nairobi jijiifa oo aan soo shaqo tegin weligood waa ka soo helaysaan marka saas sax maaha in uu qof $700 iska qaato isagoo maraykan jiifa ama yurub jiifa ama africa jiifa ama gurigiisa iska jiifa oon imaanayn wiil soomaaliyeedna oo 200 qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo carruurtiisa agoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso wax suurtagala maaha aakhire maxaan ku jawaabaynaa wax lagu jawaaba ma laha waa la isweydiinaya labadaas waddankay wada leeyihin way wada dhasheen walaalo waaye waay kani uu sidan u yeelanaya kana soo waay aad fursadda u siisay kaas waay uu kana sidan ugu dhimanaya imisa jaamiciin oo jaamacada ka soo baxday oo aad wada garanaysaan oo masters degrees oo PhD ah oon shaqo haynin oo fadhisa meesha oo habeenkii aad shaha aan wada cabnaa oo soo fadhina waayaan fursadda u siin laanahay ayaga walaalayaalow hay-adihii ku noqda eg waxaa la yidhi shaqaalo rayid mar haddii la noqdo laysma taabto
marka qofku wuxuu rabo sameynaya waa taqaanaan sida la isu taabto sharcigu wuxuu leeyahay waad garanaysiin aad baa u taqaanaan hay-adihiin iyo wasaaradihii ku noqda from tomorrow waxaa waaye waxaa la rabaa meeshaas inaad xalaalaysan inta kale dee xalaal iyo xaraam dadkan 4,000 dadkaasi hadda xaggee jiraan waxay qaadanayaan ma xalaal baa caruurtooda waxay siinayaan ma xalaal baa ma isweydiiyeen horta xalaal maa caruurtooda waxay siinayaan contract buu galay timekan meeshaas uu kaga tegay Soomaali baa iska leh timekan uu jiifa hadda dadka Soomaaliyeed baa iska leh asagu ma laha wuu gatay waa hore la gatay by the time uu saxiixayay baa ayaa laga iibsaday marka xaraam buu ilmihiisa siinayaa asaguna xaraam buu cunayaa Soomaalidu inay fahmaan way musuqa meeshii ka bilaabanaysa ee ugu dambeysay ee ugu horeysay meesha waa marka taa waxa waaye waxay la tahay dadka Soomaaliyeedna way la yaabeen laynoguma garaabayo laakiin waxaa saxa inaan mas'uuliyadaas cidda taqaan cidda la ogyahay waa agaasimayaasha guud ee dawladda iyo maareeyayaasha ee madaxda ee halkan fadhiya ayaa mas'uulka arrintaas wax laga qabtaan rabnaa